ku-xigeenka ciidanka bilayska Jumhuriyadda Soomaaliland sareeye guuta Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Cabdiraxmaan Fooxle oo uu heliyo hoggaanka ciidanka bilmadka Jumhuriyadda Soomaaliland Cabdi Axmed Tiir iyo waliba xubin ka socodka xafiiska ciidanka bilayska Jumhuriyadda Soomaaliland ayaa saaka soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kulan ballaaran oo kulay saldhigga dhexe magaalada Laascaanood ciidanka bilayska magaalada Laascaanood ka howlgala warayna waxa halkaas ka hadlay taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Sool gaashaanle dhexe Cabdiraxmaan Nuur Olhaye oo ka waramay xaaladda guud ee ciidanka bilayska iyo waliba dhanka amniga ee magaalada Laascaanood xigeenka ciidanka booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Generaal Cabdiraxmaan Liibaan oo runtii u yimid in uu arko xaaladda dhabta ah ee ciidamada booliska ee Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood gobolada dalkana waynu isku aragnay socodkayaga iyo imaatinkayaga uu nagu hogaaminayo taliya-xigeenka ciidanka gobolada dalkana waynu isku aragnay socodkayaga iyo imaatinkayaga uu nagu hogaaminayo taliya-xigeenka ciidanka booliisku waxa weeyaanuun dardargelinta arrimaha ciidanka booliiska ee gobolka Sool waxaan idin leeyahay horta dhammaanteen booliis baynu nahay magaceenu waa booliis haybteenu waa booliis qoladeenu waa booliis taliya ku-xigeenka ciidanka bilayska Jumhuriyadda Soomaaliland sareeye guuta Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Cabdiraxmaan Fooxle oo mahadceliyay ciidanka bilayska magaalada Laascaanood sida adag ee nabadgelyada uga shaqeeyeen isagoo uu mahadceliyay bulshada reer Laascaanood sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen ciidanka nabadgelyada ee gobolka Sool iyo ciidanka Sool ee Laascaanood qaybta iyo ciidanka birmadka ee mar walba bil walba ay yimaadeen aad bay maasiin magaalada iyo amniga way sugeen dadka xiriir wanaagsan bay la leeyihiin intay aan kormeerkan ku tireysaan arkay waa magaalo degtay iyo dad shacbi oo wanaagsan oo iyaguna nabadda jecel aad baan idin salaamaya aad iyo aad hawshaasaynu kala baxaynaa insha Allah waa mahadsantihiin bilayska Jumhuriyadda Soomaaliland iyo waliba saraakiil ku heliyay kormeerkiisan ay kulan ballaaran kula yeesheen xafiiskiisa gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Maxamed Faarax Aadan ay weeliyaan cuqaashi wax garadka ku sugan magaalada Laascaanood uu ku joogo taliya-xigeenka ciidanka bilayska Jumhuriyadda Soomaaliland magaalada Laascaanood ayaa waxa uu sheegay inuu yahay ujeedkiisu sidii u dardargelin lahaa howlaha bilayska ee guud ahaan